ugu dambeyn sidan qurux badan ayay kusoo baxday baastadan inaba caadi maaha guys. tijaabiya hadda sidan u samaysataan hubaalo waa ka heleysaan inaba caadi maaha. soo qaybta tijaabiskan ana idiin qaabilsan hubaal hadda sidan u samaysatid mar walbaba sidan ayaa u لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي وإذن سلام ميلو بعدني كجوتان ولاشين حفصة هداتا مكي كوغوريس أسو بوقون استنالكي فضلا سبسكرايب إيسر هدا هوري لجوجتوكو معصان تاي مانتو حاجة حلستين أيدين القيب صدا باستا آد ومعان si fudud loo sameynaayo intuu biyaha noo karkaraayo. hadda waxaa sameysan doonaa suugadeena. birtaawada ayaa dabka soo saar, saliida ayaa ku shubaa, kadibna bashasha ayaa ku shubi doonaa. bashasha markay shiilanta kadibna waxa suugadeena ka sameysan doona ayaa ku dari doonaa. sida usoo baxda waa arki doonaa guys. inaba caadi ma aha. hadda sidan u sameysataan hubaalo waa ka heleysaan. marka hilibka iyo suugada waxay isdhexgeli waxaan ku dari doonaa xawaajiyaasha iyo maraq digaaga iyo cusbada hal mar ayaan ku dari doonaa. xawaajiyaasha waa optional, waxaa jecesha ayaa ku darsanaysaa. hadda waxaan ku darayaa tuun iyo kabsar caleen. markaa kadibna waxaan ku dari doonaa yaanyo aan soo jarjaray. markay wax yar ku shiilanta kadibna waxaan ku dari doonaa shiishiid waayo kalar qurux badan ee isiisaa raba. hadda waxaan ku dari doonaa qudaaro kala duwan. kadibna markaas dhexgeli waa dabooli doonaa. wax yar ayaa u dhiman suugadeena oo bislaa rabtaa. biyihii baastada waa noo soo karkara. ani waxaa isticmaali doonaa makaronaha nuuca dhaadheer. baasta alaala baastada madax haysatid ayaa isticmaaleysaa.
Hadda suugadeena waa diyaar, waa ka dajinaynaa waayo dab kale ayay maraysaa iyada baastada ma sugaysa ilaa kaaga bislaato. Ceeriinka markay ka baxdo biseelna aysan gaarin ayaa miiraysaa. Haddana waxaa sameyn doonaa sooska u isticmaalay baastada. Wuxuu ka koobnaan doonaa yogurt cream, mayonnaise, mozzarella cheese, cusbo iyo xawaajiyaal. Inta ayuu ka koobnaan doonaa. Hadda meeshaan waxaa kusoo diyaarsanaa weelkii foornada la gelin lahaa. Waxaan ka dhigi doonaa 2 dabaq. Kow waxaan ku shubi doonaa baastada, waxaan ku xiji doonaa suugada, kadibna creamka, kadibna baastada. Haddana dabaq labaad ayaa dhisi doonaa. Foornada waxay ku jiraysaa 25 daqiiqo. Waxaana kaga dhigaa 200 oo digrii ayaa hadda kor waxaa kaga saari doonaa cheese ayaa kor kaga saari doonaa. Kadibna foornada ayaan geli doonaa. Waa arki doonaa sidii ku soo baxdo. Intay baastada foorno noogu jirto waxaan sameysan doonaa sooska aan baastada ku cuni lahayn. Isna wuxuu ka koobnaan doonaa yogurt, mayonnaise, ketchup, liin dhanaan, kabsar caleen iyo tuun, filfil iyo cusbo. Inta ayuu ka koobnaan doonaa. Sooska inaba caadi ma aha, wax walba ayaa ku cuni kartaa. Waa soos aad iyo aad u macaan. Haddaad sidan u sameysataan hubaal waa ka heleysaan.
hadda wax yar wuu naga adkaada, waxaa ku dari doonaa kis yar oo biyo ah, kadib is dhexgeli doonaa, ka bacdina waa diyaar sooskeena. baastadana sidan quruxda badan ayay kusoo baxday maasha Allah. Hadda waa soo guri doonaa, saxanka ayaa soo saara, waxaa korka ka sharxi doonaa kabsar caleen iyo jiis ayaa ku xoqi doonaa. Sooska aan sameeyay gees ayaa kasoo saari doonaa. Baastada inaba caadi ma guys, hadda sidan u samaysataan hubaal waa ka heleysaan, mar walba sidan ayaa u samaysan doontaan, tijaabi. ugu dambeyn sidan quruxda badan ayay kusoo baxday. Fadlan fiidiyoga hadduu ku cajabay like saar. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.